markii Allah uu abuuray aabaheen Aadam wuxuu amray inay malaa'igtu u sujuudaan way u sujuudeen dhammaantood marka laga reebo Ibliis oo kibirkiisii iyo isla weynidiisii u diideen inuu sujuudo waxaa laga cayriyay samada lagana saaray raxmaddii Alle Ibliis ayaa go'aansaday maalintaas inuu dagaal aan gabasho lahayn uu la galo isirka Aadam dagaalkan ayaa bilowday markii Ibliis uu dalbaday in dab loo dhigo oo ilaa qiyaamaha nolosha loo daayo Allah wuu ka aqbalay dalabkiisii wuxuuna Ibliis wacad ku maray inuu wada kasta u fariisan doono ilma Aadam laakiin Ilaahay min Aadamka ma abuurin oo kaliya balse markasta wuxuu u soo dirayay nebiyaal iyo rasuul xasuusiya waxa ay dunidan u yimaadeen kuna hagas dariiqa saxda ah ilaa ay gaareen rasuushii iyo nebiyaashii Ilaahay soo diray 120,000 25 ka mid ah rasuushaas ayaa lagu xusay Quraanka Kariimka waxaan bilownay qisaska nebiyada waxaan doonaynaa inaan bisha barakaysan ee Ramadaan ifooda inaan ku soo hayso aan ka faa'iideysano qisaska nebiyada waa inuu si fiican isla qaadaadibno inagoo mid u booqan doona qisaska nebiyada magacaygu waa Cali Maxamed halkana waa Gob Media ku soo dhow qisas cusub iyo muuqaalo cusub